ugu yaraan 40 muhaajiriin ah oo ka soo jeedaan qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ku dhawaad 80 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay madaafiic lagu garaacay xiro ay ku jireen dad muhaajiriin ah oo ku taalay duleedka magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka lagu laayay xirada degmada Tajura ee banaanka caasimadda Liibiya ay intaasi ka badnaan karto, wuxuuna intaasi raaciyay in hadda ay shaqaalaha gargaarka degdega ahi ay weli daadgureynayaan meedadka iyo dadka dhaawaca ah. bayaanka ka soo baxay dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee Liibiya ayaa lagu cambaariyay weerarka. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dambeeyo generaalka awoodda badan ee Khalifa Haftar. ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday xarunta lagu hayay dadka muhaajiriinta ee dalkaasi Liibiya. sidoo kale weli ma aysan soo bixin faahfaahin ku saabsan dalalka ay u kala dhasheen muhaajiriinta xalay lagu dilay dalkaasi Liibiya, inkastoo loo badinayo inay ku jiraan dad Soomaaliyeed.